hargal wanaagsan waxaan ku soo nahay xafiiska agaasimaha guud wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ka wareysanay xafid guud ciidamada xoogga dalka iyo tillaabooyinka ay wada wasaaradda waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay wadaan howlgallo lagu bacsanayo al-shabaab sidii loola wareegi lahaa goobaha ay kaga soo yihiin dalka. dhinaca kale waxa uu sheegay agaasimaha inay dowladda wado qorsho ay dadku u guurinayaan dhulkii ay leedahay wasaaradda gaashaandhigga dowladda Soomaaliya si loogu shaqeeyo. wuxuu sheegay in xasilinta caasimadda ay qayb weyn ku lahaayeen ciidamada xoogga dalka sidii horumarin nabad loo gaarsiin lahaa. waxaa guul weyn ah in aan maanta ka hadlayno AMISOM inay baxayso oo ciidanka xoogga dalka loo wareegayo waajibaadka ay AMISOM ku joogto intaan umada cilaa aan bixinayna erayga laftigiisa wuxuu yahay miisaankiisa dhowr siyaasadeed oo dhowr cilmi leh oo dhowr isku kalsooni leh oo dhowr ku talagal dib u xarashada dalka in ay xoogga dalka Soomaaliya malabaad madaxweynaha howlgalladu marka waa inaan la socoto anigu hadda taaban bay laakiin la socoto maalin walba saacadda hadda la joogo howlgalladaasna waxa ay ujeedadoodu tahay in ay dib u xarashada xuduudaha dadka iyo dhulka iyo badda Soomaalida waajibaadkaasi ay tahay waa la socotaa hindiilada muuqata iyo yani ciidanka xoogga dalka uusan xataa xuduudihii iyo dibadihii iska wada xataa magaalada xamar doorka uu ka leeyahay wadaas wadooyinka marka looma tilmaami karo buqcad waxaa loo tilmaami karo guud ahaan in hadda taliska ciidanka iyo wasaaradda warfaafinta ka socda waxaasoo dhan waxay ka turjumaya howlgallada socday magaaladaas. marka howlgallada meelaha ugu muhiimsan hadda ay ka sameeyaan ciidanka ma sheegi kartaa malaba حرب إلا إسكندرية إذا هو تحيي هذا هالك استعتد وده سأكل الأرضي لبس قال ساكين لبسين كله حاجة اعتقاير كيف من هالقرار ما يشخصون. هالقرار مثلا هذا يسوون في حضارة الله يقول وفرع الله برعيد كسيدنا فإنما أصلا وصفته دولته وتقرصه ذلك لما تكون لاقي كود ذلك الدائرة إنه يجي دور شقق في بعض مثل هذا وعندنا الله نتيجة وحكوها عليه كذا ها سيد قرصوه يعني دور صوص وطوط الأكورة تلك فبراير ويسبوع وحيكون شعب عن تاعي أمني وضعكم إنه فافو حاطيها مع هذا وحويا قرصها سياسية الدولة قرشها أمنية الدولة مكة الصعودة ووضع الصعودة وحن قد عيسي نبوها بدورش كلام بكور كلام بعد ذلك كلام همية كلام حلق بير كلام طبعا هذا هو قرصوه والإسلام لك سياسة دورشه يدنك أمنية دورشه وعليك الحكمين ظهر برايم مينستر كلها AMISOM وحوالي في بورتا استيل مشان ولو اللي البوليس وفينا وسيد مشان هالكلام دور قوة هذول كانوا وريني دور قوة وش كل الجماعة وعم صعمة دور قوة أنا كذا صعمة هنا كانوا قالوا يعني AMISOM نوع وقتها نوع من international بدأ الصومال الورويين لبعتك AMISOM وضخم بعض الحملة أنا هو فلوتيسا ميلاد عافي دولتا له برود صدق برود معقد قرص سير رود يصير أقول له ما بس كده بدل كلام مختار جو الأولى بسنة حويا AMISOM إن أي بدل كان بحضر لبعتك يكون إذا كانوا بدك الصوماليين ضمانت بدل كان ما كسكت حاجة جديدة إلى مرة في تعقيدات الوزارة إيش قياس عن قدر الحاجة طبعا سأل السؤال يقول كعني السيان بيتلالي دمني ويوروب كلية مع عنده ملاك كمان من السيان
dowladda saacadna waa si hadana isku tasho inta badan waxa weeyaan budgetka dowladda Soomaaliya ay ugu qoondayso wasaaradda shaqada iyo horumarka taa macnaheedu maaha in kuliyad ku fariya laakiin waxay ka tahay aasaaska fadhida oo maanta haddii ay dhaqaalahaas hadda tilmaamayso dowladaha noo imaan hadduu maanta noqo maaha mid aanu u curyaanin laakiin mid aanu waa mid dhibaya awoodaydi maaha laakiin maaha keliya ku taagan waxaan ku taagan taageerada waxaan ku taagan budgetka dowladda Soomaaliya ay siiso waxaan ku taagan budgetka dowladda u qorshaysay ciidamada xuquuqda Soomaaliya inta kale oo dhan waxaa la yidhahdaa marka waa kan haddaad baasika ku karsanay suugo lagugu daray haddii hilib lagugu daro labada waxaa waa kan marka ma doonayo in mentaalitiga ciidanka iyo ummadda Soomaalida ay u aaminaan in xoogga dadka Soomaaliya ku taagan dhaqaalaha dowladda dowladdaasiya dhaqaalaha ku taagannahay oo ku howlgalo kuna shaqeyno lafdhabarka nooca dhaqaalaha dowladda budgetka loogu talagalay howlgalka xawarka socda xasilinta loo bixiyey lafdhabar waxaan filayaa awood booliiska yani booliiskii iyo militarigu labadaba si dhab ay uga howlgalaan waa muuqataa amar sidii hadda uga soo reynayso amniga أنا هبيك مع مركز خارق الصعود على فرصة 10 ساعة يعني بعد ما قارق المراه في الإصابة كلها بينها وين مقدس بدل من هذا الأمر وحنا سمعنا وعلم الحقوق ذاك السؤال إيوه بوليس كيسير يمسك الدسم هذه كمان قضية عقلات علمك بدل كل بلعة من الإنسان تذكروا الموهش هنا على سيدنا الجوع عقلات ووضع علم ما حصل غلط فرق حقوق السماء والسعودية الله سبحانه وحنا نوع اسبيتال موبايل أو سكترات الدقيقة وحنا نوع حد إنه يجران أباب وهجان كعافمات وهذا إن دمان سكتر واسبيتال درجة الأربعة درجة الأربعة هو إلا يقلني الله سبحانه وحنا في الأيام دماتك سنة كان عم بلوغ سنة إن واحد بدنا يعني كيف بيقول دونا اللي جد عفمات كده